maanta waxaan iska dhigi doonaa dadka caanka waxaana kaga yaabin doonaa taageerayaashooda muuqaalkii ka horreeyay waxaa daawaday 6,000,000 oo qof waxaana la agtaaray dad ku dhow 5,000 oo qof maasha Allah waa wax lagu farxo muuqaalkaas waxaa soo geliyay 23kii May maalintii ku xigtay maalinta 24kii May isla muuqaalkaas oo kale waxaa soo geliyay saaxiibkay Ashqar Boy dabadeed dad badan ayuu madax weerar ku dhacay waxba hayaabina waxaan waa challenge haddaba muuqaalkan aad maanta daawan doontaan kani waa aniga muuqaalkan waxaan iska dhigi doonaa qof caana waxaana kaga yaabin doonaa dadka uu ka duwanaan doonaa kii hore ee aad soo daawatay maanta dadka caanka ah ee aan iska dhigay taageerayaashooda waxaan siin doonaa lacago laakiin samaaha lacag run ah ee waa lacag fake ah waxaana samayn doonaa sidan tani waa $100 oo sawir ah dadka caanka ah taageerayaashooda ayaan ka dalban doonaa sawiraantooda haddii ay ii soo diraan lacagtan $ka ayaan dhex dhigi doonaa sawiraantooda kadibna waan u diri doonaa haddaba aynu wada eegno falcelintooda sawiraantooda miyay ii soo diri doonaan aynu guda galno saaxiibayaal qofka ugu horeeya ee aynu iska dhigaynaa waxa weeye waa Qaysar waxaanu samaysan doonaa account Instagram oo fake waxaanu ku qori doonaa magaciisa waxayna profile-ka soo saaran doonaa sawirka Instagram-ka u saaran isaga sawir la mid ah waxayna target ka dhigaynaa dadka isaga ku xiran waliba dhanka Instagram-ka iyaga aynu kaga waali doonaa mid ka mid ah taageerayaashiisa ayaan u qoray waxa kula hadlaya vlogger-kii weynaa ee Qaysar in yar kadib wuxuu ii soo qoray Qaysar waxaan message u diray 1000 jeer wax ka badan وطلو مركا محو كوغو سو جوابي واي انا كوغو شيغay iska daa wuxuu kale ii soo raacay adigu maxaad ahayd 0 follower ayaad wada taabay eergid baana waxaan u qoray akoonkan waxaan ku tala galay inaan kala hadlo taageerayaashayda kunkii message ee uu ii soo diray sidaan uga raali geliyo waxaan u qoray aad baan kaaga raali gelinayaa message-yada aad ii soo dirtay dadka ayaa igu badnaa waxaan kale u sii raacay laakiin maanta ayaan fursad ku helay inaad ka faa'iideysato ayaan filaya haddana wuxuu ii soo qoray okay waa fiican arin yar baan ka lahaa talow arinta wiiga leeyahay maxay noqon doontaa si aan u sii maaweeliyo haddana waxaan u qoray arintu ha noo dambaysay waxaan u socdaa Dubai waxaan ka soo duubayaa vlog waxaan dabcay inaan kaxeeyo taageerayaashayda mid ka mid ah maadaama heerkan aan taaganahay aad idinku soo gaarsiiseen talow message-ka ma ku arko muxuu ku soo jawaabi doonaa wuxuu ii soo qoray saaxiib halka taagan tahay meel ka sareysa ayadu qalanta wallahi meeshan taaganahay meel ka sareysan u qalma 20,000 waxba noga ma harin subscribe ku boob video-gana like ta kii laabina wuxuu kale ii soo raacay wallahi saaxiib muddo badan baan ku fikiray inaan tago Dubai on ku soo raaxaysto laakiin sidaada noloshooda may ku fin ana saaxiib waxaan u qoray war saaxiib noloshu marba ii kufto waan ka kicilaay ee laba sharti mid soo gal maxajka mise Dubai yani maxajkan ku geeyaa mise Dubai bal mid dooro in yar kadib wuxuu ii soo qoray حجك نيو دبي مال ماهي وحو كانوا يسور راعي ولي جيبوا النصيب حماية ما أنت هير حجك يسور راسدو أيانا مريا أنا وحانو قري باسبورت ما هيستا يرقد وحو يسو قري مايا إساقنا ما إيه سمينين دي مركا ما ناقر لي واحد دون ساميان إن حجك نكو جيو باسبور نكوسو سمايو ومن وحانو قري والا قو سميني يا والا هولولي أنا كوتشوغا سو $100 لغو ما سمايو إيسودر sawirkaaga saan sawirkiisa oo kaliya ta u helo waxaan u soo maray 100 iyo 100 passport wallahi uu soo diray sawirkiisa waa kan wuxuu ku soo dul qoray ha ii soo dir ana samaysanay yaani waa $100 baa lagu sameeynaya $100 ii soo dir ana samaysanay $100 ma doonsan inaad ka cuntid miya laakiin sataan kugu dhigo wad arki doontaa waxaan u qoray saaxiibayaan nin lacag la ayaad u egtahay mid ay ka jiifto ayaa la hadlaya saaxiib aad baan ku salaamaya in yar kadib wuxuu ii soo qoray war Qays maxaa ka qaldan sodiga ninka weyna lacag meel maraysa maba arkaba nin lacag leh baad u egtahay ayaad iska leedahay nadir oo naga farxi yaa nacaaw ka dhex qaylinay ka asadiga dhex qaylinaysa jimba taadu miya intaas kadibna waxaan sameeyay lacagtii $ka ayaan sawirkiisa dhex dhigay waanan u diray kadibna falcelintiisa sidan ayay noqotay wuxuu ii soo qoray warde maxaa kaasiya lacagtan halkay ka shaqeysa ciyaarta nagada qof weyn baan ku mooday ninkan aad baa uga xanaajiyay wallahi saaxib I'm sorry aad baan uga xumay I'm very sorry qofka labaad ee aynu iska dhigaynaa waxa weeye Shukriya gabadhan saaxiibayaal haddii aydan garanay waxa ku jirta filimka artay yada aynu ka samaysan doonaa ciwaan fake waxayna Instagram-ka ku qoran doonaa magaceeda profile-kan waxaanu soo dhigan doonaa sawirka iyada u yaala Instagram-ka oo kale waxayna kaga waali doonaa mid kamid ah taageerayaashayda saaxiibayaal mid baan soo helay waxaan u qoray assalaamu calaykum walaalo in yar kadib wuxuu ii soo qoray qofka ila hadlaya maciyaalo weeradiiba أنا waxaan u qoray ha waa iyadii wuxuu ii soo qoray si baan wajigaaga uga baqaayay maxaad iga soo doontay quruxay yaani sid wajigeeda ma ka uga baqdaa أنا waxaan u qoray maanad kamid ahayn taageerayaashayda wax iga codso wuxuu ii soo qoray ha aad waliba wuxuu kale ii soo raacay lacag ii soo dir waan yaabanahay أنا san sawirkiisa u helo waxaan u qoray lacag baad u baahan tahay miya ii soo dir sawirkaaga hay ninkan waan inaga sii horeeyaba wuxuu ii soo qoray ciyaalo weero
kuma aamina sawirkayga ii soo dir lacagta haddii kale iga tag ana intaan dhalaalay ayaan u diray sawir $100 kadibna waxaan ku qoray waa taas walaalo ee ducada igu soo hoob saaxiibayaal waxaanu kaga waali doonaa taageero labaad oo taageera shukriya waxaan u qoray assalaamu calaykum walaalo in kadib wuxuu ii soo qoray ma shukriya caana casiir ba caana casiirtaas xaga timid ana waxaan u qoray haa walaalo aktaradii ayaa kula hadlaysa wuxuuna ii soo qoray waar hayaay isku soo yaacay walaalo big fan baan ku ahay wallah markaa maxaa la iska soo yaacaya ana waxaan u qoray waad mahadsan tahay walaalo maxaad iga codsanaysaa maadaama aad chance ugu heshay maanta wuxuu ii soo qoray quruxay wallaahi billaahi waan ku jecelahay adiga dartaa fooqo ugu dheer xamar waan iskaga soo tuuri karaa bisinka hayaay wuxuu kaloo ii soo raaciyay biliis xiriir ma wada samayn karnaa waxay qofkan iimaan kale la hadlay halkuu ku soo qadimay hore u soo fadhiyay ana waxaan u qoray walaal xiriirka barasha ka horeysay sawirkaaga ii soo dir jabbaad gashay soo dir sawirkaada sawir buu noo soo diray lagasaniyo nin aan TikTok ku arku eegi wuxuuna igu soo hoos qoray waa kaas walaalo ma lay qaadan karin ana waxaan u qoray maasha Allah indhihii baa igu xanuunay quruxdaada ee $100 baan ku soo tuurayay isku kala kicay in kadib wuxuu ii soo qoray walaal haye ii soo daa lambarkayga aan ku soo qoray lambarkiisina uu noo soo raacay بالله طلع يقدر أركي لها من قد ما قال دالله أنا صاحب waxaan u diray sawir $100 oo ku dhex dhajiyay waliba sawirkiisa waxaan ku hoos qoray waa ka walaal 100 isna wuxuu soo qoray quruxay maxaad iga ciyaaraysaa hadda xiriirkayga qabal weydo waan istileeyaa abal joog shukriyan la hadlayay hello shukriyay nin baan xalan ku hayaa adiga dadka isku dilay bal soo carar way kan shaasho ninkan noo hay yuna dadka u dhimanay waaniga soo gaaray